بسم الله الرحمن الرحيم أنا هوري مدح بنان كهول قلب مقدشو waxaan fursad u helay inaan su'aal ka weydiiyo maareeyo oo kamid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland arinta la xiriirta safarka madaxweynaha ee la sheegay in dhawaan uu ku tagi doono magaalada Hargeysa ugu horreyn mudane maxaad kala socotaa ogaanta adeer anigu wax wara kama hayo safarka la leeyahay madaxweynaha Farmaajo ayaa ku tagaya Hargeysa kana hadli maayo laakiin waxaan jecelahay inaan talo halkan uga soo jeediyo shacabka iyo madaxda reer Soomaaliland oo runtii ah meel ay ka soo jeedo wanaagna la jecelahay waxaan kula talinayaa buuqa iska daaya oo la imaada siyaasad iyo talo aad kula jaan qaadi kartaan isbedelka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni ee ka socda geeska Afrika iyo adduunka oo haddii aad ka hadhaan mar dambe meel aad kala qabsataan aydan heli doonin oo markaa mudane ma waxaad leedahay madaxweyne Farmaajo soo dhaweeya oo u ogolaad inuu Hargeysa tago oo adeer maxay bay ku diididee xataa sida ay sheegaan hadday u aqoonsan yihiin dal Charla madaxweyne dal Charla Soomaaliland ha u soo dhaweeyeen sida ay u soo dhaweyn lahaayeen maanta haddii uu dhihi lahaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waxaan imaanaya Soomaaliland ama hadduu dhihi lahaa madaxweyne Uhuru ama madaxweyne ra'iisul wasaare Abiy sidaasoo kale ha u soo dhaweeyeen haddii ay u aqoonsan yihiin waxa uu madaxweyne Farmaajo maanta Soomaaliland u yahayna sidaas ay u soo dhaweeyeen ayaan kula talinayaa marka mar walba soo dhaweynto waa muhiim ugu dambeyntii mudan haddii aan ku weydiiyo su'aasheedii ah Soomaaliland 28 sano ayay gooni sutaag markaa ku jireen oo ay madax banaani raadinayeen marka maxaad isleedahay waa ay ka wada hadli karaan madaxweynaha hadduu halkaasi gaaro adeer wax kasta oo dan ay ka wada hadli karaan oo ciidaa ka badan ay ka wada hadli karaan oo iskaga xidhan oo aan meel loo dhaafalahay xaqiiqiyan haddii maanta qof madaxa Hargeysa lagu soo dhaweynayo qofkii ugu munaasabsanaa ee wax iskaga xidhnaayeen way sidaadba sheegtay 28 sano ay Soomaaliland lahayd hal siyaasad oo fadhiida oo marfashiyada looga taliyo ee maskaxdu aanay talinayno madaxdu aanay talinayn mar kasta waxaan meelaha adduunka kula kulmaa madax iyo wasiiro Soomaaliland ka socda waxay ku dhahayaan waa aragnaa waxa aan ku tashanay waxoogaa culays ka jire shacabkaanu ka cabsanayna waxaan dhahaa shacabku soo adiga hoggaanka kuuma dhiiban soo adigu madax ma tihi ma meel ay ku codeeyeen baa jira soo adiga siyaasadooda rogroggeeda iyo keenista plan A iyo B iyo C iyo dadkan future-kooda inaad u taliso soo adiga lagaama rabo ma dadka marfashada ku qayilaya baad ayaad leedahay siyaasadda uga cabsanaya adeer hadday codeeyaan oo shacabku intuu tashado codeeyo oo ku codeeyo weligaan sidaanaan ahaanaynaa ee ha fekerin halkaanaan ku jiraynaa ee cidna ha arkin cidna ha maqlin dee taas shacabku kuma dhihin baan ku laakiin mas-uuliyaddaada dayacaysaa shacabku dhibaato loo geystay oo aniga laftigaygu aan la qabo oo madaxweynuhu qiray ayay koseen ka qabaan laakiin ninkii rogrogi lahaa ninkii wax uga soo saari lahaa ninkii future-kooda iyo dowladnimadooda iyo noloshooda ka talin lahaa sida ay ku wanaagsan tahay waa madaxda Soomaaliland waxaan leeyahay waa inay mas-uuliyaddooda qaataan oo dadka Soomaaliyeed hadda halkan imaanaya iyagoo baabaasa oo baasaboor raadinaya oo shahaado raadinaya oo shati ganacsi raadinaya oo fiisa raadinaya xaqiiqda yaan la dafirin waa in la hadlaa waa in open discussion la furaa runtii anigu labadii professor Ali Khaliif iyo Ahmed Ismaaciil Samatar waa ku taageersanaa tabliiqii siyaasadeed laakiin waa la propaganda marfashidan sheegaya propaganda madaxdiina may dhihin war xilligaynu fakari lahayn baynu joognaaye daaya ha hadleena daaya ama dadka waxgalka labeentiisa inta la isu keeno la dhaho war 28 sano kadib maxaynu yeelnaa adduunka siyaasaddiisa way isbedelaysaa gobolka siyaasaddiisa way isbedelaysaa Soomaaliya hadda dawladeedu xoog bay leedahay taladeeday qaadanaysaa haddii taladeedii haddayna ku keento sidaynu uga bixi karnaa berigii ay jamada ahaayeen maahan haddii ummadii haddii meel lagu qufulo oo la dhaho qufulkaasa ku jirtaane dhinacna ha fiirinina oo cidna ha la hadlina oo cidna ha maqlina dhibna ay ku jiraan ummadda waxaa ka madaxda dhibka inay ka saaraan waxay u taagan yihiin
ummadda ay matelaan inay dhibka ka saaraan oo kan hadda sheegay inuu ku jiro marka waxaan kula talinayaa war bal fadhiista oo qabyaaladan iyo waxan iyo ishaysigan iyo buuqan iyo madaxyo mijala-aantan iska daayo dadka waxgaradkiisa iyo hoggaankiisa oo madaxweyne muuse biixi ugu horeeyo ha isu yimaadeen ha yidhaahdeen sidaynu soomaaliya oo maanta taladiinii taallo ula macaamilnaa sidaynu dhibkii ina gaadhay iyo waxa maanta ina hor yaalla isu waafajinaa waa inay yidhaahdaan wey xataa anigu marmarka qaarkood in kastana madaxweyneha arkin marmar aan wasiirada meelaha ku arkay waxaan war haddaydaan wax kale samaynayn wasiirka somalilan wasiirka soomaaliya magacaaba isagu xamar ha yimaado ilaa adduunka dawladda waxaa loo dhisaa structure waafaqsan dhibaatooyinka ku haysta loo dhisaa marka waa inay magacaabaan wasiirka soomaaliya oo xamar imaan kara oo halkan discussion nagula geli kara oo madaxda la kulmi kara oo dadka halkan immigrationka tuban u fududayn kara oo waa inay magacaabaan marka anigu waxaan leeyahay war siyaasadda marfashka iyo qaylada iyo dhinacna loo dhaqaaqi maayo iyo waxba maqli mayno iyo waxba arki mayno hadda kadib ma shaqayn karto maskaxaa shaqayso waa mahadsantahay su-aal kale ma qaadi karo waa mahadsantahay